بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون شليت واحد قريودي oday maanta raggii ugu foolaadka haya ugu daada weynaa qaranka reer Somaliland muddo dheer soo ahaa ilaa iyo halgankii guurtidii xagga dhaqanka iyo xagga siyaasadda labadaba qaybta weyn iyo nabadgelyada ka soo qaadatay Maxamed Aw Cabdi ilaahay ha u naxariisto dalka Jabuuti aynu walaalaha nahay waxaa maanta ka yimi wafdi aad iyo aad u ballaaran oo u yimi inay ka qayb galaan tacsidaas marxuumkaas Maxamed Aw Cabdi waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha Siciid Nuux waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha cadaaladda Cali Bahdoon waxaa ka mid ah wasiirka waxbarashada Mustafa Maxamuud waxaa ka mid ah xildhibaano waxaa ka mid ah mas'uuliyiin kale oo dowladda Jabuuti xilal waaweyn ka haya wafdigaasoo aad secretary generaalku ka mid yahay madaxtooyada waxa maxaanku dhahday ay noogu yimaadeen walaalnimo iyo tacsida inay qaybtooda ka qaataan hadalkooda rasmigaana waxay ka jeedin doonaan markaynu hadhowta tagno aaska saakay soo galeen oo yimaadeen marka hadda waxaan doonaynaa inaan qaranka u sheegno inaynu qaran walaalaan nahay laba daloo jaaran nahay inaynu ehel iyo qaraababa wada nahay inaynu maxaanku dhahday mar walba nolosha wada qaybsanno oo ay maanta ka yimaadeen dowladda Somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi golaha wasiirada madaxweynaha Jabuutina oo la soo hadlay si rasmi ah waxa looga gudoomay tacsidaas ayna soo tacsiyadeeyeen haddana waan ka gudoomaynaa waa inaynuna soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynayaa oo wafdiga kelmadooda odhanaya wasiirka daakhiliga inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsu daa'iqul mawt halkan waxaan u soconaa maanta anagoo wafdi ballaaran hor socda oo Jabuuti ka socona tacsi sidna aabihii dalka ee Jabuuti hooyadii dalka ee Jabuuti dhammaan shacabkii reer Jabuuti wafdiga ballaaran hor socdo waxaanu leenahay waxaanu soconaa tacsi iyaanu soconay waxaan leenahay naga gudoomo odagaa dhintay qaaliga maaragtay Allah u naxariisto mudane Maxamed Aw Axmed Allah u naxariisto naxariisna ka waraabiyo waxaan leenahay horta Somaliland oo dhan Allah samir iimaan ka siiyo qaas ahaana golaha gurtida Allah iyagana maaragtay samir iimaan ka siiyo dhammaan shacbiga Somaliland oo dhan samir iimaan baan leenahay